dhalinyarada lab iyo dhadig bale ee baraha bulshada aad uga dagaalamay ee hawsha ka dhiidhiyay ee wacdaraha ka muujiyay ee markaan dhageystay ama aan daba galay qalbigaygu ku qaboobay aad baan ugu farxay qadiyada ayada in muslimiintu maanta dhalinyaradoodii ay taagan yihiin ninkii nabiga wax ka sheega ama diinkeena dura inay halka la gaaraan dareenka maanta ay qabaan dhalinyaradu muslimiinta lab iyo dhadigba hadduu 75 jiri lahaa culumadani lama laayeen inay siyaad barre dambaarida kuma gowraceen ninka boqorka ama madaxweynuhu ah waa faajir daaqi ah wuxuu qiimeeyaa kolba bulshadu meeshay marayso hadday bulshadu yacad tidhaahdo wuu cabsadaa hadday u hogtaanna wuu dullaystaa xaqiiqa la ogyahay weeye arrintaa dhallinyarada baraha bulshada inaan u mahadnaqo waxyaabahay u kallifo weeye inaan caawa ka hadlo qadiyadda ayada ma jeclayn inaan qadiyaddaas aan soo celceliyo idinkoo igu daalayay kuwa la mida inaan ka hadlay laakiin dareenka ay dhalinyaradu lab iyo dhadigba baraha bulshada ka muujiyeen ee diin jacaylka ah ee danqashada ah ee islaam jacaylka iyo dhiidhiga ficilada diineeda ayaa idanqay oo u kallifay inaan qadiyadda caawa ka hadlo qodobkaasi mahadnaqa dhalinyaradu waa iga mudan yihiin khayr allah siiyo duunkada allah ku sugo mar walbo qadiyadda noocaas ay timaadana waxaan ka doonayaa inay ka hadlaan